dadkayga waxaan rabaa in aan maanta idiin sheego 4 shay oo keenaya jidhkaaga inuu isbedelo. markaad jiimka timaado waxaa laga yaabaa inaad bir culus waxay kaa caawinaysaa jidhkaaga kala baxo oo uu koro. dadkaygu dhamaantu waan islaam horta soo dhawaada haddii aad youtube-kayga cusub tahay soo dhawo magacaygu waa fitness. dadkayga waxaan rabaa in aan maanta idiin sheego 4 shay oo keenaya jidhkaaga inuu isbedelo. dhammaantiin waad soo weydiinaysa I know waad ogtiin cuntada training anything waxaas waa muhiim laakiin 4 shay kale oo muhiim ayaa rabaa dhammaantiin aan idiin sheego. diyaar ma tihin idinku? Let's go. in aad jidhkaaga kululeyso markaad jiimka timaado waxaa laga yaabaa inaad bir culus isku qaado, waxaa laga yaabaa inaad mishiin iska qaado markaba ku boodo. maya ha ku boodin, isku day in uu jidhkaagu marka hore kulul yahay ama mataqaan aad kululeyso. kow waxaad ku kululeyn kartaa baaskiilka, laba waxaad ku kululeyn kartaa mishiinka socodka, saddex waxaad ku kululeyn kartaa miisaan aad iyo aad u fudud nus kiilo ama mataqaan kiilo yar oo mataqaan kaliyaata jidhkaaga furfuraya marka hore. waayo waxaa laga yaabaa week hore jiimka kugu dambeysay, xalayna jiimka kugu dambeysay, mataqaan 2 cisho ku jiimteena kugu dambeysay. marka waa muhiim jidhkaaga markaad jiimta timaado in aad kala furfurto jidhka intaanad bilaqaan. marka taas waa ta koobaad. kow laba in aad ogsoon tahay guriga adigoo ka bixin waa inaad ogaataa waxa aad maanta samaynayso markaad jiimta timaado. dad badan baa waxaan arkay jiimta way soo galayaan mishiinka buu qaadaya, kan buu qaadaya, kan buu qaadaya, kan buu qaadaya, xagga buu ordaya, kan buu qaadaya, mishiinka buu qaadaya, kan kale qaadaya. adiga wareeraya inta aanad gurigaaga ka bixin ee jiimkan uba dhaqaaqin ama mataqaan uba diyaargaroobin ogsoonow maanta waxaad samaynayso. haddii ay garbaha tahay, haddii ay gacmaha tahay, haddii ay caloosha tahay, haddii ay mataqaanaaye lugaha tahay, waxay doontaa aad ogow meesha aad samaynayso inta mishiin aad samaynayso inta waqti intee ku jiraysaa. marka waa muhiim inaad ogaato intaad gurigaaga ka bixin waxa aad maanta samaynayso. ha iska tagin jiimta, ha iska qaadin biro, ha iska qaadin kan kale ku carar. waayo mishiin kastoo aad samaynaysa waxa loogu talagalay waa muruq gaar ah. haddii ay laabta noqoto, haddii ay garbaha noqoto, haddii ay dhabarka noqoto, mishiinka ha iska geli meesha keliya, ha iska carcararin keliya. ogsoonow intaad gurigaaga ka bixin waxa aad maanta samaynayso. waa talabaad. 3 marka aad jiimta aad ka soo baxdo jidhkaaga nasi. taasi waxay kaa caawinaysaa jidhkaagu kala baxo oo uu koro. goolka doonta laho ama miisaan isku dar ama iska dhin ama mataqaanaa shaybkaagu ha taagnaado. waa muhiim in aad jidhkaaga nasiso markaad jiimta ka timaado. ilaahayna 30 daqiiqo ha ka dhigo, saacad ha ka dhigo. haddii ay xilli dambe tahay seexo, haddii ay mataqaanaaye aad waqti hayso subax oo kale jiimta aad tagto dhibaato ma laha. 30 daqiiqo naso, saacad naso. waxyaabo badan ha qaadqaad, wax culus ha qaadqaadin guriga. shaqa mataqaan haddaad tegayso wax culus ha qaadin, laakiin inaad nasataa waa muhiim markaad jiimta ka soo baxdo. taas waxay kaa caawinaysaa jidhkaagu kala baxo oo koro oo mataqaanaa isbedel imaado. laakiin haddii aad jiimtii markaad ka timaado wax kale aad qabato ama kubad aad ku cararto ama hawl kale aad qabato ama aad nasan weyda jidhkii chance ma yeelanayo inuu koro ama mataqaanaa oo kala baxo. waa taata saddexaad. 4 in aad biyo badan aad cabto jiimta markaad ka timaado. waxaa laga yaabaa biyo badan aad cabto jiimta dhexdeeda, laakiin markaad jiimta ku jirto iyo markaad ka soo baxda isku mid maaha. jidhkaaga waxaa ka baxay energy, waxaa ka baxay dhidid, waxaa ka baxay mataqaanaaye cuntadii aad soo cuntay. jidhkaagu wuxuu u baahan yahay waxaad geliso ama cunto guriga intaad sii socotaa waa waqti. isku day markaa in aad biyo badan aad cabto si jidhkaagu u koro ama mataqaanaa oo u kala baxo. guriga markaad timaado sidoo kale biyo badan cab oo mataqaanaa jidhkaaga nasi. waa ka 4taas dhammaantiin kula talinaya dadkayga isku dayna 4 samayso. waa 4 waxay kaa caawinayaan inuu jidhkaagu koro oo isbedelo. wuxuu doono goolkaagu waa wiil iyo gabadh ka doonta ahaw. 4 way baanfacayaan haddii aad hore u samayn jirtay wad. haddii aad mataqaanaaye hore u samayn jirin britol markaad jiimta tagto ka bilow. waayo adiga ay faa'iido u tahay jidhkaagana way anfacaysaa. haddii aad mataqaanaa rabto inaad ka mid noqoto dhammaan inta coaching gareeyo wiil iyo gabadhba waa ka website-kayga hanafitness.com gala xaggayga la soo hadla. haddii ay noqoto wax su'aala waxay doontaa ahaato Facebook iyo Instagram-ka aad isticmaalaan. haddii ayna isugu jirin xaggaasaan soo dhigaya igala soo hadla. waxay noqotay mataqaanaa video
like صار subscribe صار channel كيجا واي فيديو كلام وصوّدا سام مركز استنوا على هذا فيديو كلام وصوّدا سيانة كلها في مركز subscribe صار واي نوع فيديو وحيا peace out